miyaan kaaga warramay dhool suudi maxaase ka og tahay arrinkiisa baryo badan ayaan ku booqanayay waab uu kobaha ku toli jiray waxaan ugu jidaalayay barashada xidigiska marmarna wuxuu iga sheekayn jiray sooyaalka noloshiisa oo ay ku suntan yihiin tusaalooyin waaweyn dhool suudi oo dadka badankiisa ugu yeeraan magaca aabihiis oo suudi ah waa nin faradhaadhi ah kuna xeel dheer samaynta dhuugga iyo khayraanka tirjinta xargaha yeelka adag tolidda kabaha iyo weliba qormada dhirta oo uu ka sameeyo inta qabaalku ugu weyn yahay shanladuna ugu yar tahay ma jira sarmale carriga ku nool oo lala simi karo shaygii qurxanba waxaa la yidhaah ma dhool baa sameeyey dhool wuxuu ka soo jeedaa beel yar oo gu'yaal hortood looga adkaada dagaal ay gashay guuldarradaas dabadeedna waxaa ku dhabowday mahmahdii ahayd doqoni hadday ku legado kaama kacdo xoolo iyo xandho waxay lahaayeen ayaa laga taabay iyagiina waxaa laga dhigay in la laayay in la gumaystay iyo in dhulyow kala duwan u firxaday waagaas jeeska dhool suudi waxay nasiib u yeesheen in ay u soo qaxaan reer wajeer iyaga oo ka kooban dhool iyo xaaskiisa oo ah cosab yabarow saddex ay isu dhaleen iyo cosab aabbaheed galab galbaha ka mida ayaan dhool uga imid waab uu kabaha ku toli jiray 2 maqaar oo hadiimo ah ayuu midna markaas hoodhinayay midna hoolmagiireeyey wejiga ayay uga tiil dambas ay ku bitisay buufimo oo dabka ku afuufayay taasoo si dhaba u qarisay midabkiisii dhalaalayay iyo garkiisiiba sidaas awgeed intuu foolka gacanta iska mariyey ayuu salaan ii soo taagay odaygu waa nin hufnaan badan mar kastana waxaan ka koobin jiray talo aan u aayo iyo tusaale laabtayda raad ku reeba maalin buu i tusay geed meel shisha ka muuqda iguna yidhi geedkaas muuqaalkiisa waxuun iga sheeg waa bilcil naqaysan oo caleen badan leh ayaan ku idhi markaasuu haddana geedkii ii soo dhoweeyey iguna yidhi iminkana wax iga sheeg asaan u sheegay inuu qodxa iyo caleenba leeyahay labadaas su'aalood waxay igu biiriyeen xigmadda ah in aan dhib kasta dheef ka dhex arko dheef kastana aan dhib ka dhex arko waxaa kale uu i baray xeerar dahsoon ay abkeennii hore adeegsan jireen si ay ugu waaraan guul nololeed diinta awowayaasheen gebigeed xeerar uunbay ka kooban tahay weedhaas ayuu iiga amba qaaday cashiro aan dhammaad lahayn wuxuu dhowr rumaysan yahay diintii waa qeefatada oo ay iminka beela Soomaaliyeed iyo kuwo Oromo ahi ku sii dambeeyaan weli wuu ka caagan yahay hilibka idaha oo aanay curadadii hore cuni jirin ma uu jabsan jirin dhuuxa lafaha shanshada ah mana uu cunayn hilibka qaarka dambe ee xoolaha maadaama uu ka dhashay reer curad ahaa faalka ayuu cid kasta ugu kalsoonaa wuxuu la tashan jiray bii'ada asaga oo ka tusaale qaadanayo qaabka ay dabayluhu u dhacayaan sida ay shimbiruhu u ciyayaan iyo wixii lamida waan xusuustaa oo sanadka bilowgiisii ayaan u imid amin fiidharow ah asaguna uu cirka sare u eegayo markaan warsaday sababta uu sidaas u yeelayo ayuu ii sheegay inuu bilkeedinayo sida uu guga curtay noqon doono waxaan ka codsaday inuu arrinkaasi baro markaasuu igu yidhi xaydarow xilliga guga caawa uu dirirku curto ayaa habeenka loo qaybiyaa 3 meelood haddii qaybta hore uu cirku daruur leeyahay qaybta dambana ay circaddaa tahay ififaalaha waa in dowgaas intiisa hore rooban tahay halka inta dambana ay tahay kaliil roobla bisha dhaxana gu'soore waxaa lagu qaadaa hadba labada dhan tay u badato waa xilli bar haatan sidaas bay u eg tahay in gugu noqon doono markii igu horraysay ee uu aqoon kororsi ii bilaabo waxay ahayd xilli la waayey roobkii dayreed kii guguna uu soo daahay dad iyo dunyaba waa la dhibanay rajo nololeedna waxaa laga sugayey xagga waaqa oo cirka ayaa kor loo eegayey maalinkaas waxaan u imid dhool oo waabkiisii ka soo baxay aadna u faraxsan waxaan xaggiisa u sitay maqaar dibi oo aan rabay inuu koba iigu tolo iyo maqaar nayleed oo isna aan u rabay inuu iga sameeyo ugar qurxan intuu salaanhii kacli ii fidiyey ayuu igu yidhi waaqayu wuu soo dhowaaday oo roob baa di'i doono hadda dhow waxaan weydiiyey cidda u daafurtay aqoonta alle u goonida ah isna wuxuu ii sheegay inuu waaqu aqoontiisa in badan ugu deeqay aadanaha
balse aanay ka faa'iidin innaba. dood yar kadib ayuu i tusay cantala hawada sare ku meerayo oo la moodo inuu shirluqow ciyaarayo, iguna yidhi, xaydarow dhaqanka cantalaagu sidaas ma aha, wuxuu ka mid yahay shimbiraha ujeeddo keliya u duula. haatanse dulo maran ayay ku meermeerayaan, haddiiba ay sidaan yeelaan waxay saadaalinayaan roob iyo barwaaqo dhowaan ah. intaas markaan ka maqlay ayuu haddana farta iigu fiiqay geed meegaag ahaa oo agtiisa ku yiil, ina sheegay labadii mascagalay inay ka soo degeen. wuxuu igu yidhi, abeeso iyo quraanjo waxay is arkaan xilli barwaaqo ama roob curad hortiis. abeesadu waxaa la yidhi xilliga jiilaalka oo dhan hoos ma eegto, waxayse dhaqankaas beddeshaa markuu roobku curan rabo. kolkaas bay madaxeedii ceegaagay hoos u dhigtaa. in badan ayuu i barayay sida waayaha looga odoroso, habdhaca dabaylaha, qaabdhismeedka iyo guurguurka daruuraha, kalmeerka xidigaha, yeerta dugaagga iyo shimbiraha, baxaaliga dhirta iyo ciidda, iyo weliba murti badan oo noloshayda wax badan ka beddelay. dhool wuxuu ii noqday maandhis aan u jeelo iyo waday aan nafta u huri lahaa. markaan rugtiisii ugu imid oo aan sanaan isdhaafsannay ayaan ku idhi, dhoolow waan maqlay in beeshu xoolo idiin ururinayso. isna iigu afceliyey, annagaa xoolaha badbaadinay. dhool sodogiis yabarow ayaa ah faraadin ama dhakhtar ku xeel dheer jirooyinka xoolaha. xilligaasna waxaa jiray cudurrada sambabka, garbabka iyo waraabootiga oo ay geel iyo ari badan ku le'deen. waxaase idanka alle ku daweeyey yabarow iyo boqolaal dhallinyaro ah oo asagu tusaale wacan ka siiyey dabargoynta jirooyinka. sababtaas ayaa xoolaha loogu ururinayaa. dhanka kale, cusub yabarow oo ah xaaska dhool suudi waa baanato lala tiigsado daweynta iyo tawinta jirooyinka dumarka. carriga oo dhan baa laga murweeyaa, waxaana meelo fogfog looga keenaa bukaanno laga quustay. markaas bay iyaga oo fayo qaba dib uga hadaafaan. bal malay qoyska uu waayeelkoodu saddexdaas qof yahay ee haddana waxtar intaas la eg bulshada u leh. soo laguma miisaaliin unuggii halbowlaha ama daryeelayaal aan sinnaba looga maarmin. arrimihii wajeer ka soo raray ayaan dhool wax ka weydiiyey. markaas buu igu yidhi, haydarow, markii aan soo qaxnay anigoo ay ila socdaan bilcaantayda 3 aan dhalay iyo sodonkii ayaan u nimid beesha wajeer. intaan hayaamaynay ayuu naga dhintay gambool oo ilmaha u weynaay. amarka alle laguma caasiyo ee waxaan ku aasay xabaal aan qoray qaad lahayn. beeshu wayna soo dhoweeyeen, annaguna aqoontayadii ayaan uga dhex shaqaysannay oo xulquun iyo xoolaba uga helnay. waxaa isla dhulkii iigu hana qaaday labadii cunug ee ii hartay oo jamaad iyo caynab ahaa. maandhow arrinka aan kuu sheegayo u fiirso. waxaa dhacday maalin ilmahaygu ay maqal ilaalinayaan ayay arkeen nin beesha ah oo intuu geed qaba ah dama la saara gubayo. caynab oo ahaa fariid caqli badan ayaa ninkii weydiiyey sababta uu geedka u gubayo. isna wuxuu u sheegay inuu god dawaca ku yaal geedka hoostiisa, ayadiina ay ku jirto. markaas buu caynab ku yidhi, meeday naxariistii mise waad waalatay? ooraahdaas yar ayuu caynab eersaday oo ninkii u xanaaqay baa intuu galbaduub u xiray dabkii ku tuuray. gabadhiina wuu uleeyey jeer ay dhulka ku dhacday. arrinkaasi markuu dhacay dabadeedna wiilkii la aasay ayaan beesha u dacwooday, anigoo 2 arrin midood filayay: ninka oo la qisaaso ama wiilka magtiisa iyo xaalmarin dheeraad ah oo laygu bogsiiyo. sidaas lama yeelin ee maalmo kadib ayaa lay keenay 2 riyood iyo orgi sogob ah, layguna yidhi, inu suudiyow intaas ku raalli noqo. galabtii aan 3 neef sidaas ku qaatay habeenkeedii ayaa ninkiina gowracay oo aan mar labaad soo qaxnay. haydarow waxa i soo maray oo dhib iyo dhimaal ah miyaan maalin qura kaaga warrami karaa? tolla'aantu ceel badana. dhool suudi sheekadiisu ma dhammaato oo waa nin adduunka lagu kadeeday. haddase xaalkiisu intii hore wuu ka soo raynayaa. wuxuu rumaysan yahay in beesha tani uga ron tahay tii wajeer. waa dharaartii koodaar ahayd ee aan ladan ku ballannay in aan xasaabaha soo afjarno oo aan go'aan dhab ah qaadanno. waanse soo noqonayaaye hasha iyo midigteeda ayaan u arooriyey ceelkii darmaan. intaan hillinka ku joogo waxaan isweydiinayaa, talow haddii gabadha lagu diido maxaa samaynaysaa? sidee u guursan kartaa adiga oo wiilashii kaa weynay doob yihiin? gabadhu waa ina ogaas oo gabaati
yarad iyo meherba waa in geel iyo gammaan boqolaalah laga bixiyaa ee reer aare awooddaas ma leeyihiin yaase la qaybsanaya culayskaas dhaqaale maxaa dadka ku qasbaya inay guurkaaga u huraan xoolo magag ah dadka kugu xamanaya wacalnimo amxaaranimo iyo ereyo ka sii liito sidee bay gabadhooda kugu oggolaan ma laga yaabaa in arrinkani uu geeri ku horseedo oo ay walaalaheed ku dhagraan su'aalo halis ah ayaan ku haftay waxaanse istusa haddii ay guurka igu raacdo laysa diido ama ay si kale wax u dhacaan inaan ula baxsado carro aan dhowaan maqlay inay degaan karanle oo ah cidda ay hooyadii ka dhalatay laga yaaba in abtiyaashay iyo xigaalkii halkaas ka helo sidaas ayaan niyadda u sheegay intay la ekaataba aniga oo soo jeedka ku riyoonayo hashuna wabax ii tahay ayaan soo gaaray karin ay ladan ariga ku daajinayso sidii caadadayd ahayd ayaan kor ula qiimiyey waryaa xoolaha la jooga iyana meel aan fogayn ayay bow ka soo tiri in ay warkayga sugi la'ayd ayaan maleeyey balse xaalku ka duwan sidaas oo dareen walwalsan bay ila hor joogsatay ladanay iska warran waa nabadi maceelkiibaad ka timid haa wagar sidee wax u jiraan iyaad soo aragtay qofna xaydow shalay haasawaheennii waa la maqlay oo xalay baa laygu canaantay muggii la ogaaday in aad hasha aruurisayna waxaa ku soo raacay danan iyo haybe si ay kuu dilaan oo maxay igu galayaan waa intaan kuu sheegay uun waa kuma wadaadka sheegay in aan labadeennu sheekaysan karin xaydarow nin rag ahi xantiis ma mooga ee sooma ogid waxa lagaa sheegayo naaheedhe nin aan aqoon iyo doqon uunbaa warkaas ku hadaaqayee waxaan ku warsaday waa tii aan wada hadalnay ee haddii wiilashaas raadsanaya ilaahayna kala badbaadiyo maxaad ka qabtaa inaan aqal galno ilaan laba isu qalanto ayaan nahay walaalle hor iyo dhammaanba waxba kuguma diidani waase in aad gardarrada walaalahay odayaasha uga gardhigataa deedna aan arrinkayaga ku xijinnaa innagoo ladanay degdeg waa doqonnimo ee armaan wax hubsadaa haddii waranku dooxo waxna hubsatay warna kuma yaal qooro iyo qabna la'aan dumar adigaa u garaad badan ragna adigaa u waansami og aniga iyo seediyaashay rag baa noo bixi doona alla ha ka dhigo maad dhahdid alla ha ka dhigo xaydarow waxaan ku iweydii ahaha heedhe miyaan qoslaa mise wax baan kuu sheegaa in adeer labadaba xaydarow waxaad u dhaxaysaa haadaamatii aa ku dhacdaaba ay iskeenna siijinayso ee ma og tahay haa oo haddii lay dilo waan isi seegnay haddiise aan rag iska dhiciyo oo alla gacantayda dad ku sababo hadda waa layga gardarnaay eedna melihiya ma og tahay wax aan dhicin yaanan ku jitamin ee iska ilaali shayddaanku waa tala xun yahaye tubtaad qaaddaba habboon ladanay adeer aarre ayaan u tegayaa isagaana waxgaradka la xiriirayo foolba fool baa loogu dugaalaa marka odayadu ha wada hadleen annaguna aan wada howlgalno waa arrin hagaagsani miyaan kuu sheegay inuu reerka iga soo doonay gahayr cumar erayadaas kooban ayay qosol ku bilowday murug iyo foorarna ku dhammaysay gahayr waa maalqabeen u dhashay cawliyahan allah u badiyey geela iyo lo'da fardihiisuna iyaga oo boqolaal ah ayay dooxyada agteenna ah ku falaalaan ha sheegin ariga tiradiisa iyo ninkaasi waxa uu hanti leeyahay sidaas ha ahaatee waa nin ay tolkiis garab u yihiin dhalasho kalena waaska ayay kala dhexaysaa sidaas awgeed aniga oo kasha iyo kaskuba iga xumaadeen ayaan ku tiraabay eebbow irid ii fur ladan baa intay tallaabo dhankay u soo qaaday iyadoo erayo tabantaabo leh igu dhiirinaysa igu tiri xaydarow waa in aan samaanta jid la yaqaan u marnaa haddiise ay dadku isu keenna diidaan markaas waa in aan qardajeexnaa aniga amaan qardajeexa ku ambannaa ladan cid eebba itaalayo iyo indheergaradku ma ambado aniga haddii aad go'aan noo gaarayso maxaad odhan laheyd ladan xaydarow runta lagama xaggeeyo aniguna dooni maayo gahayrkaa 5 naagood qaba ee weliba faca awowgay ah waxaan kugula talinayaa inaad odayaal soo dirsato oo kollayba waa loo dayrin lahaa ee haddii sidaasu dhacdo aan isla baxsanno
aniga taasi ballan iyo go'aan ma tahay? ladan waa tahay. aniga ladanay dumarku masayr badana. ladan maxaad ku keentay? aniga gahayr 2 naag buu qabaaye maxaad u odhan 5? ladan haddiiba mid iga horraysay maxay 2 iyo 5 isu kaaya dhaamaan? aniga waxba isma dhaamaan, armuu iga kaa guursadaa oo aad tii 6aad noqotaa. ladan xeedarow taas ha ka cabsan. aniga dumarku si fudud bay wacadka u furaan ee adigu ballantii ha ka bayrin. ladan wacad xumarag baa lagu yaqaan ee war baan ku leeyahay. aniga haye iyada oo la moodo inay eegol heshay ayay iigu maasootay. runaa marag leh, magan waa ilaah muhasho qayraa leh, samaa muran la been lagu mudici mala awaalaa leh, teed macangagaa loo ogaa murtina odayga moojaa leh, tala mojala madaxsa aan lahayn maangu racan baa leh, mar waa dhaqanta hooyaa milgaleh, marin xundoob baa leh, nin markaday mataantiis walaal magacdil been baa leh, mucda hadalka meeshaan la rabo mala abbaarkaygu madal lagu dhuroobiyo rog aan sama ku maaweelno, guur midha dhal yeeshiyo jacayl murug la uun weeye, waxaan maaha leeyahay geddaad ani imoodaa haddii uu gahayr maal baxshoo kunina soo muudi inaad mudanka sare ii tahaan dhaarku marayaaye, waqaad igu murwaysaa runtaa mayran oo wacane, marinkaa qalloocdaa midhaa mururuq ku geyni, maxaa dumarku kaamana mudnee ceebo ula maagi. markay sidaas tidhi ayaan geed agtayda ah cuskaday, luqunta ayaan togay si aan gabay ugu xaalmariyo ereygii ay dhibsatay. in aan ammaano ayaan u hedladay, balse waxaan maqlay coddadeed oo duleedka ka soo yeeraya. kolkaas ayaan hore u dhaqsaday, balse intaan gadaal soo eegay ayaan si hoose ugu idhi, waad iga gar leedahay, warkaasna wax wanaagsan baan ka odhan doonaa ee nabadgelyo. ladan waaqay ha ku nabadgeliyo, aniga adigana waaqu ha ku dhowro. markaan ka dhaqaaq ayaan dib u soo dhugtay, waxaan irraday iyadoo aan u malaynayo inay ooyeyso. bihinbiho ay hoos ula rogonsatay. waase hubaal oo nacayb ugama tegin, naftuna way hibanaysaa. laakiin qabdadeed ayaa ina kala irdhaynayo. hubaal maanta xaalku wuxuu eg yahay tii uu aarri iiga warramay ee sabab u ahayd colaaddii dhulkiisa ka keentay iyo sababihii dhaliyey. qabiilka aarra bulxan ka dhashay iyo kii in badan dirirta u dhexaysay wuxuu dagaalkoodu ka bilowday gabdho uu rag ku loolamay. geellaydu wax ka fidno badan ee wacwaclo dhunkaal oo cayr ah iyo raaga bootaan oo reer diini ah ayaa isku maandhaafay. sindheer markaas hana qaaday ee qurux la soo banbaxday. koraa diiriye ayaa la odhan jiray oo sacad bay ahayd. gabadhaas allah u naxariistee waxay caan ku ahayd aftahamo iyo dhagar. mana tirsamaan baa la yidhi geesiyada iyo inta nin karmeedmadii ahaa ee aawadeed loo dooxay iyo inta jeer ee ay beelo dhan gelisay colaad hoog leh. iyada oo filsamideed leesu sheegay oo baryahanba ninkii maalin la koodo uu rag kale ku kuunyo ayay koraa diiriye habeennada ka mida ciyaar hirwe ah ka boodday. wiilashadeedii iyo islabroggeedii rag buu miyir qaado oo maanka iska yidhi tani waa taydii. gabayadii cawayska ka socday oo badankood iyadoo lagu ammaanayay ayaa lagu laray ilaaq iyo ficilo soo jireen ah. raaga bootaan habeenkaas waa laga afbadiyey. gabadhiina waxay u meertay wacwaclo dhunkaal oo ay ugu xilatay codkarnimada iyo sida uu bidhaanteeda towlan tin ilaa cirib uu maanse ugu suureeyey. cid xoola badanna wuu ka dhashay ee malaha hantidaas bay jamatay. ismaandhaafkaas labada wiil u dhexeeyey wuxuu habeenkii xiga raaga bootaan ku dhaliyey in uu raadsado wiil wacwaclala dhashay oo waalnaa. misena intuu koor u soo xiray ayuu la yimid goobtii lagu ciyaarayey. hirwada oo xiisaleed awgeed wacwacla ma uu dareemin shanqarta koorta walaalkiis loo soo xiray ilaa uu raaga ku maansooday gabay ku bilowday. ayraan karuur iyo lahayn daga cid loo kaalo ayaan koorta soo suray haddeer koran u weynaae. gabaygaas dabadiis ayuu wacwacla indhaha biniiniyey, arkayna koorta uu walaalkiis hadba gees u walfinayo. intuu cadho karaar dhaafay ayuu waranka haabtay. waxaase kala hormaray raaga oo birta deelaysa caloosha iyo dhabarka isaga tabay. kaaga darane markii goobta lagu kala booday ayaa raaga iyo dhallinyaro ay hore u soo showreen
xoog ku masaafeeyeen koraa diiriyey si uu murankuba u dhammaado oo meher loogu qabiro. xumaan baa sidaas ku eefuratay oo inta gaaxdeedii la maalay oo godolkeedii lagu rakaatay ayaa haddana gabnadeedii la biidhaystay. waxaa la yidhi hooggu waa uu hurdaa ee lama toosiyo, waase la toosiyey waxaana xabaalkeedii ka soo hilhilatay xanfalay oo cartamayso. isla goortiiba beeshii cayr ayaa qayladhaan isgaarsiisay. dawyadii ayay ka soo urureen rag u badan dhallinyaro booba ah. isla habeenkii xigayna waxay gowrac ku midheen rag badan oo reer diini ah, geelna way ka boojiyeen. 4 wiil oo raagala dhalatay iyo aarra aabbihiis oo bulxan la odhan jiray ayaa ka mid ahaa dadkii habeenkaas mugdiga lagu warjeefay. waa saqaan mariixaan ee reer diini way dabagaleen godobtooda. dagaal bay salab u qaateen, sahayna waxaa noo ah bay yidhaahdeen xoolaha reerkaas laga soo dhici doono. taasi way u dhabowday oo cayr oo warla ayay ka dul dhaceen. kolkii ay soo guulaysteen ayay iyaguna markooda boqolaal geela ku soo didsadeen warmo uu dhiiggu ka tifqayo. waa 2 duulaan oo ay dhallinyarta beeluhu kala hormareen taladii odayaasha. waxaan maqlay in aanay cayrku wiilashooda ku anqarin wax aan caano geel ahayn, si uu wiilkaasi mustaqbalka u noqdo nin xoog ama xeelad geel badan ku soo xerogalsha. sidii waajib diineed bay arrinkaas u dhowreen. ma u malaynaysaa in rag sidaas loogu anqariyey ay ka harayaan ilmaankoodii la dhacay? waaba marka ay dhab u bilaabatay colaaddii ugu fool xumeed dunida. agoon booyey, dumar balanbalay, geesi birmad ah iyo jilib weyn u babac dhigay ee birta halalac leh isku dooxay. wax aan hore loo maqal iyo bambaas hadimo ayaa la isku markaday. reerihii wadayaalka ahaa baa kala irdhoobay oo dhulkii daaqa wacnaay iyo ceelashii aganka ahaa ayaa cabsi looga dallaabay. nabsigu waa meele ee waxaa dunida isku soo gaaray dhiigyo cabmaag badnaa iyo agoonkii uu aabbihiis gowracay isaga oo jiif ah. waa odaygii isoo korsaday oo markuu dhasha loo bixiyey aare si uu ugu aara aabbihiis bulxan oo uu bireeyey tigaad xalane oo cayr ahaa. sida la rumaysan yahay bulxan sugulle oo gu'yaal badan mootanay xabaasha ayuu ceel kula jiraa. waa uu ka xishoonayaa in uu u kaco kor iyo halka waaqu jiro oo ay dadka eynigiisa ahaa darsamaan ugu naaloonayaan. ayaamaha qaarkoodna ekeeradiisa ama ruuxdiisa ayaa gamaadda ka soo baxda oo kaymaha midhata iyada oo qayle iyo cataaw la meehanaabaysa. sidaas darteed waa in loo aaraa si uu ceelkaasi u daayo. gu'yaal dabadood ayaa tigaad oo ahaa ninkii bulxan dilay iyo aarra bulxan oo barbaar ay ku kulmeen cidla aanan labadooda lagu wehlin. kulankaasi mid shartiisa leh ayuu ahaa, sanaan la isma dhaafsan, ilaa nin weliba wuxuu og yahay kan kale muraadkiisa aarre waran ayuu jirjirayaa, tigaadna wuu gacan maran yahay. waa barbaar inuu wax dila raba iyo oday inuu ka baxsado tiigsanaya. inkasta oo uu aar hurgume ciilla gubanayay, haddana goortii aabbihiis la dilay in door ah baa laga joogaa. waana laga heshiiyey colaaddii loo bixiyey ilma birays. sannado badan hortood ayaa lagu samayna biraystay in ninkii nin dilo laysu gacan geliyo. dhowr jeer ayna taasi dhacday. walle kuma dahayo iyo waa waray eraydaas oo qura ayaa tigaad iyo aarra kala gaaray. waxaana xigay waran xinjir leh, hana go'ay iyo naf hirraagaysa aakhiro yeelka. maalintaas wuxuu aarra bulxan furay nidarkii ay hooyadiis ku gashay in aanay guursan doonin ilaa tigaad xalane budda xabaasha la dhigo. islaantu waa aarra hooyadiise ceel hore ayay ninkaas u qabtay. wiilal iyada la dhashay oo durraan iyo bariise la odhan jiray ayuu tigaad bil gudaheed wada dilay. waxayse aad uga sheekaysaa durraan oo isaga oo ceelka uga hormaray iyaduna ay ariga soo ururinayso uu tigaad gowrac ku jiiday. nasiib darro markii ay ceelka timid oo walaalkeed weysay ayay cabbaar sugtay. waaba tigaad oo qoslaya oo intuu u yimid ku yidhi, naago'doy maxaa meesha ku dhigay? walaalkay oo iga soo horreeyey ayaan la ahay meel uu ka baxay. la soco qaybta 5.